وبركات حتى قالقة وإن السلام يا ولا شيء ندي فقرن يتكلم وقول بهايس سود هذا ملك استود دوتامبا وإن السلام يا سود هذا وحنو فلنقينا وكهلينا ودنيا دبنتا بل سود هذا هستي هذا الإنجليز ولا شيء كلي ودني وغيري والله يا حسن شيخ هي حلبان ديسة هي الدولة ديسة بقى كلي ودني هي كلية أياد ليسا إنه يبودن كبر هي كلية تلذيذ ليه إنه هي كليه وحي ربان أنا نوشي كران إنه هي كليه نمامول كران وحن ربا ويستهيرنا أسوقاتي وحاسعة موشين موشينka ayaa laga keenaya waxa laga keenaya baa la yiri ninkii la dhahay xamse marxuun baa laga keenaya xagee looga keenaya oo loogu tashanaya dalka gudihiisa maaha bal annaga caqligayadooda iyo maskaxda dawladan rabta inay ku hesho muddo kordhin wadaniyad beena xataa ma taqaano wadada ay u mari lahayd xataa haday xamar ku qabato shirka oo ay xamar ku maamusho oo xamar dhaado xilkan uga qaadaya ilaa markii mooshin la keenayo ma qof xilka laga qaadayo waa in qofku dalka joogo dadka wax ka qaadanayo inay dalka dhibaatada la rabo in laga geysto ama qofkaas wax dhibaatayna laga eriyo waa in la joogo dadkan ya jooga oo xildhibaanadii dhamaa oo xilalka noo haayay oo dawladan matalay oo daniyada beenta watay oo shaatiga beenta noo sitay intay Nairobi tageen bay waxay leeyihiin xilbaan waxaan ka qaadaynaa ra'iisul wasaare marka maba xuma xilka ka qaada mooshinka keena shilimaad ku qaata idinka idin taala laakiin ninku Nairobi uu ka yahay ra'iisul wasaare marxuunku idinka wadateen idinku idinka tirsanaa Nairobi jooga mise Nairobi ayuu ka yahay ninkanu ra'iisul wasaare mise Muqdisho ka yahay Soomaaliya وسؤال وباهن ليش ويديو لمن كان ودنيا دبنتا مال والبا نو جلايه ee anaga noo malaya ciyaal aan waxba garanayn garashada iyada ku ciyaaraya su'aalaha bal inay ka jawaabaan ba fiicnaan lahayd nimanka Nairobi way isugu tageen intaasoo xildhibaana ah vacation u aadeen lacag ku cunayaan dawladii iyo nimankii qabay baa u yeeray waa wadan saqiir iyo kabiir la wada maamulo saqiir iyo kabiir rakala maamula waa dad meel kale looga taliyo waa ummad meel kale to laad u jeedo oo aad arkayso waxba nalkay iga dimay nimanka marka meeshaas maamulanaya meeshaas jooga leh maxay haytay xilbaan wax ka qaadayna ilaah baan idinku dhaariyay maxaad ku macnayn lahaydeen intay Nairobi isugu tageen oo Nairobi ku shireen oo Nairobi wada fariisteen ya bay waxay ku leeyihiin xilbaan waxaan ka qaadaynaa ninku marka Nairobi mu taliya waa wadaniyad beena waa dad aad u malayso sida iyaga loo haystay rabaan anaga inay noo haystaan sida iyaga loo maamulay rabaan anaga inay noo maamulaan sida iyaga maalinba dhinac loogu jeediyo oo loogu ciyaaro ayay rabaan anaga inay noogu ciyaaraan ilaah baa inuu ku dhaarshay marka dadkan ma sidan baynu ku fiirsanaynaa haddaba waxaan nii sheegayaa mooshinka laga wado ninka la yiraahdo xamse yuu horta kurba ku haya haddii se laga qaadiyo haddii loo daayose yuu kurba ku haya cid uu kurba ku haya male idinka le igu ay idinka le waay nimankiinaan wada duliyiinta ay kolba meel aadaya waay annaga maaha marka waxaan la yaabanahay anigu oo aan aad iyo aad ula yaabanahay nimankan dadka sida ay ugu ciyaarayaan sida ay dadka ugu ciyaarayaan sida ay dadka ugu maleeyaan wax aan waxba garanayn waranaga Kenya naloo kama taliyo Muqdisho meel la dhahaanu leenahay Soomaaliya aanu leenahay halkaas aan xilalka inuu ku dhiibanay nimankanu marka raggii
iyaga raggoodii waxay u yeeriyaan bay rabaan annagana inay noo yeeriyaan mooshin baan ka qaadaynaayo nairobi baan ku shiraynaa oo intaasoo nin annagoo ah yaan warqad saxiixna kulaha oo mooshin baanu ka geynaynaa xamse maxay uladan leeyihiin marka mooshinkan la qaadayo macnihiisu waa maxay macnihiisu wuxuu yahay in lagu helo muddo kordhin nimankan kale oo maaragtay qabiiladan xamar dega matalana oo siyaasiyiintana lagu iyagana waqtiga looga qaado intaa kaliya looga dan leeyahay laakiin ma ku helayaan waay horta muddo kordhin ma ku helayaan waay I don't think so ma aaminsane anigu inay ku helayaan muddo kordhin laakiin way ku dhimanayaan iyaguna way isku ceebaynayaan because meesha ay joogaan baaba kugu filanba wuxuu yidhi soortaan ka dhergaayaysaan saanteedan ka gartaa miyaydanaan ogeyn qiimihiina iyo sharafkiina meeshaa taagantihiin maanta waxaa taagantihiin meeshii ugu xumayd sida idinka laynii maamulaana annaga noo maamulateen laakiin hadda nooma maamulan doontaan ilaahay idankiis idinka iyo xamsana waa isla tegaysiin haddaad u haysataa inay xamse kaliya erigi kartaanna ma eriyeysaan idinka dhan baa baxaysaan xasanu kuuma rumoobayso wadaniyad beenana dhammaatay wadaniyaddi been tahay waa dhammaatay iriday ka baxday daaqaday ka baxday way burburtay nimanka xildhibaanada ah ee maanta intay nairobi ku shireen annaga naga dhaadhicinaya xil baan qaadaynaa iyo nin baan eryeynaa waddan kalena waa ku shiraynaa xildhibaanana waa iniin nahay haddana idinkaanu idinku qancinaynaa inaan wax inii qabanayno adeerayaal taas waa horay ahayd samir iyo imaan allah inka siiyo intaadna dagteen waana dagteen waase nasiib daro in layni dhegaysto in layni wadwado in weli dad idinku faraxsanaado taasaaba nasiib daro ah taasaaba wax laga naxo oo laga xumaado ah war soomaaliyey sidaad marka u aragtiin bal nimankan caqliyadooda dhegaysta nairobi bay ku shirayaan 100 iyo hodhodho baan nahay kulaha warqad baanu soo saaraynaa iyo waxaan xil ka qaadaynaa xamso waa xamsa haddaa ka qaadanaya iddi kale yuu u noolaa awal ma noolaa waay marxuum baa waa hore loo bixiyey ilaahayna afkiibuu u qaaday waa marxuum isaga nafkiisaan nagu yidhi waa dhimanaa waa soo noolaanaa waa orodnaa waa fariisanaa waa kacnaa tii baana ilaahay u aqbalay sababto ilaahay markuu ka hadlinayo ereyada wanaagsan baa la badsadaa isagaa xamsa yidhi waa dhinta waa soo noolaan marka nin dhintay oo soo noolaada haddaad ka qaadanaya haddaad daysaanbo wax annaga nooga jira male xamsa walba idinku inay ahaa sharafna kuma laha dadkiisa waddankana sharaf kuma laha karaamadiisina wuu ku ciyaaray xataa sidii makaronina wax ma qaadanin oo malaayiin muu dhicin raganimo waay nin xataa naftiisina aan wax u tarin dadkiisina aan wax u tarin dalkiina aan wax u tarin haddaa ka qaadanaya dii kale waxba ma sheegayso laakiin idinku muhiimadda aa ka leedihiin baa waxay tahay inaad ku heshaan muddo kordhin taas in la isweydiiyo waay taa inaa isweydiisaan waay ma inii suuragelaysaa mise iniima suuragelayso anigu waxaan leeyahay iniima suuragelayso waa ku tegaysin daqiiqad layni kuma daraayo waxaanba ogolaanayn nimanka ini wadwataanba ogolaanayn kuwa maalinba dhinac inii jeediya maskaxdiina ku ciyaara annagana maaragtay na ogaaday inaa sidiinoo kale aan nahay kuwaasaanba ogolaanayn oo qof kale wataan dal la haystaana joogtaan annaguna aan sugaynaa inuu xoroobo ummad la haysto iyo dal la haysta annaguna sugaynaa idinkuna kuwa haystaad baad u shaqaysaan marka waxa weeye waa iska daba wareegaynaa sidii ratiga macsarada shiiday waxaan leeyahay marka wadaniyada beenta guryihiina la aada xasan munaafiq xasan laqe xasan tuug wallaahi bilaahi inaa cid dhegaysanaysa iyo cid yeelaysa aanay jirin maanta waxaan maqlayay barayraa la qabtay oo barayree waxaan arkaya kii fiqi ahaa oo bugaag badan soo qaatay oo daldalmaya kana hadlaynin etoobiyaanka kuwii ka hadlayna soo kaxaysta ee xamar keenay dadkaasaa rabaan inay wax noo sheegaan barnaamijkaa mar kalean ka soo hadlaya ma rabo hadda inaa iska dhexgeliyo laakiin waa soo wadaa videoga ku xigaan ka dhigaya ninka fiqiya iyo maanta wixii ka dhacay barire iyo siduu u hadlay iyo waxa ka socda gedo barnaamij kalean ka samaynaya isagana insha allah waad la soconaysiin halkanaad ka helaysiin marka sida aad u aragtiin nimankan xasan iyo kooxdiisa wadaniyada beenta ay matalayaan maanta may nagu soconaysaa
xamse saade xilka ka qaadaan maxaa inaga faa'iidaayon ka helaynaa yaase khasaarihii faa'iido ku qaba iyo waxay aaminsan yihiin hadday xamse ka qaadaan xilka oo xukuumaddan uu u taliyo ay dhacdo oo iyaguba qayb ka yihiin kuwan shiraaya qayb baa wasiire ah hadday dhacaan in dowlad cusub la helayo in nin cusub la keenayo in markaas muddo kordhin la helayo la dhahayo dowladdii hore waa burburtay marka mid cusubaan dhisaynaa bal tan waqti hala siiyo hayhaata limaa tuucaduuna waa aayadda qora dhinaca commentiga igu soo qora arrintaa lana socda qaybaha dambe ee aan kaga soo hadli doono barire iyo ninka la yihahdo fiqi iyo gobolka gedo insha allahu tacaala waraysi iyada soo qoran baan haya aad baan idinku mahad celinaya waa inii hambalyeynaya waana ini sugaya weli inaad meel gaarsiisaan waxaan rabaa bishaan inaad kontonkun ku xirtaan kontonka inay gaarsiisaanoo intii horeod igu seexateen aad iiga abaalguddaan because waad ogaateen hadda inaanan ahayn anigu jirjiroole inaanan ahayn khaa'imad inaanan ahayn dadka xumaanta wax ku raadinaya cayn iyo xumaanna nima ihi wax igu soo raaca laakiin wixii dalka iyo dadka u ah barnaamijyadeeni kaletana aynu ku gudbin karno ayaan leeyahay ugu soo raaca aad baan idinku mahad celinayaa subscribe-ka iyo share-ka iyo maaragtay commentiga xaggiina waaye barnaamijka waxaa faafiyaa waa like-ta ii saara biliis youtube-ka like ma saartaan walaalayaalo like-ta ii saara ii soo raacdaan oo iigu sheergaraysaan oo subscribe-ka iigu noqoteen waxaan idinka codsanayaa like-ta inaad siisaan barnaamijka haddaad like-ta siisaan islaantaan qaylinaysa waa la arkaya dad baa igu soo biiri doona dad baa wanaagsan baan heli doonaa ummad sideedoo kale wax raadinaysaa soo bixi doonta kuwa igu soo biiray oo kale aan heli doonaa marka biliis waa codsi barnaamijka ii sheergareeya intaasaan kaa codsanaya hanti isii kuma lihi lacag isii kuma lihi wax igu sii kuma lihi anigaa isa soo fangaraynaya taleefonka aniga waaye internetka aniga waaye muuqaalka aniga waaye codka aniga waaye wax walba laakiin adiga waxaan kaa rabaa wax lacag kugu fadhiin shilin kugu fadhiin dhibaato kugu haysan waqti kaa cunayn aniga waqti baan iska cunaya laakiin adiga waqti kaama cunayo markaa aragto islaantan like-ta ii saar biliis like-ta ii saar like-ta suulka kor u istaaji subscribe-na ka dhigo intaa ii samee commentigana waxaa rabto kusoo qor ina adeer aad baan idinka mahad celinaya wadaniyada beenta ma garateen soo dhawaada